musharax Cabdullaahi Xirsi Xasan oo sharaxnaa golaha deegaanka ee degmada Berbera astaantiisuna ahayd 3 ayaa waxa uu qadacay natiijadii xalay ay ku dhawaaqeen komishanka doorashooyinka ee gobolka Saaxil waxaanu sheegay inay isdabamarin badan ay jirto waxaanu fariin adag u diray gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Somaliland Cabdirashiid Riyaraac salaamiya dhamaantood ummadda muslimiinta magacaygu waa Cabdullaahi Xirsi Xasan musharax ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera kana tirsan xusbiga Ucud ee cadaaladda iyo daryeelka calaamadiisuna ay ahayd 311 marka hore khalad cadaana ayaa dhacay codka waxaan ay noo soo dhajiyeen imika noo sheegayaan qoob qura oo goobaha gobolka Saaxil kamid ah baan ka helay iyaguna waxay soo qoreen wixii aan qoob qura ka helay ayay soo dhajiyeen hadiya teer Soomaalidu waxay ku mahmaadaan rag cadaalad waayay sida cawsha kala yaa codkaygan tirsanayay 1500 iyo saayid buha gobolka gudihiisa ayaan gobolka dibadiisa ayaan kala soo galay cod 1000 iyo saayida imikana waxa la soo dhajinayaa markii la walaaqay ee intaas oo casho cid waliba saa isla meeraysatay 300 iyo waxaan gaarin aad iyo aad baan hota taageerayaashaydii heeganka ahaa ee diyaarka ahaa ee codkaysiiyay aad iyo aad baan uga raali gelinayaa halka ay ku dambeynaysaana sharci un bay ku dambeynaysaa sharci darraninkii wada isaga un bay la go'aysaa aniga way ila noqon weyday dalkayga iyo dadkaygaan u turay waxaan doono waan ku hadli karay laakiin waxaan u turayaa dalkayga iyo dadkayga imikana waxaan u dacwoonaynaa haday madaxweynaha tahay Muuse Bixi Cabdi haday gudoomiyaha komishanka ina Riyaraac waxaan leenahay rag cadaalad waayay sida cawsha kala yaace baraayadu af la qabtaabay leeda daba la qabto male gudoomiye waxaan ka codsanaynaa arrinka inaad hoos u eegto oo cadaalad loo eego oo nin walba codkiisa loo tiriyo ninku uu dhaca labadaba uu ku tala galaa inuu soo baxayo inuu dhaco laakiin wixii uu helo waa inuu helaa nin dhacni ka diidan meehi inaan dhaco waan ugu tala galay inaan soo baxana waan ugu tala galay waayo taageerayaasheedii ayaa naga siisanayba intaas la sheegaya goob qura bay ka codays aad iyo aad baan uga raali gelinayaa taageerayaasheeda waan u mahadnaqayaa codkii waa siiseen sida igu hagar baxdeen mayna dhicin baan leeyahay waanayna khalday khaladkuna wuu saxmayaa wixii aan cod lahayn in loo tiriyaabaan doonaya sababtoo adeer intaasoo bilood baan tartamay meel aanan gobolka ka soo shaqeyn ma jirto amaana ka hawlgelin sanduuqa gobolka kamid oo cod iigu jirina gobolka Saaxil ma dhex yaallo cidda ay qusayso waxa aan farayaa in cadaalad loo eego oo sharciga la mariyo oo cod waxaan leenahay cadaaladna loogu tiriyo waayo cidii noo joogtay xusbiga iyaga kamid ka ahayd mid walba markaan garaacnay anu waraaqa ma saxiixin buro natiijada ma ogeyn way wada joogaan waa wadaxay way cadaynayaan arrinka waxaan faraynaa in hoos loo eego in sharciga la mariyo cod wixii aanu helayn taageerayaasheeda loo sheego waxaan helin waynaan taageerayaasheeda loo sheegin waayo nin waliba waa maroora dilaac in goob qurabay intaan ka helay oo gobolka Saaxil kamid ah iyaguna waxay imika ii sheegayaan waxaan aqliga gelin waayo gabigood way wada cadhaysayn waa codayseen baan leeyahay taageerayaasheeda waan ka raali gelinayaa xaq waxaynu leenaynaa waynu helinaa xaq darrana socon mayso waayo dhowr jeer hore xaq darray ku dhacday waayo ninkii halka laga xidhay baanha ee xaq darrada la igu xidhay aad iyo aad baan madaxweynaha ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha komishanka iyo xusbigayga cadaaladda iyo daryeelka dhamaantii oo aad iyo aad uga qayb qaatay soo deyntaydii ka bacdi waan shaqaystay xaq waxaan u leeyahay cod wixii aan helay ee dadku gacanta ay taagay taageerayaashayduna ay iga filayaan haddii kale oo la waayo dee waa ceeb odhan mayno doorashadii musuqmaasuq bay ahayd laakiin gobolka Saaxil wixii ka dhacay waa la ogyahay waayo annaga ceeb nagu tahay dadka ayay ceeb ku tahay arrinkaas in la qabtaa buu baahan yahay oo nin walba xaqiisa la mariyo oo sanaaduuqdeedina loo tiriyo oo waajibkeedana la mariyo kursiba kama hadlayo waayo cod wixii aan helay baan doonayaa inay halka ku cadaadaan goob qura oo gobolka Saaxil kamid ah baan ka helay inta iyagu yeedhinayaan soo wax garateen maaha aad iyo aad baan idin salaamiyaa waa xamse jaamac yare telefishinka caalamiga badda cas 24 magaalada Berbera